بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد وحاجير جرت مقالة وحي لهيد عيل ذاتك مقالة دقن وحي بيها كداسن جرين عيلك واجد دما وحا بالوضي مركز تاو عيلك ودانت اللقليو وحا لجري جري حرقة ودانت أيا قدها لغو ريبي جري عيلك حرقة كلي أيا سون نقون جري المدأة أي مقالة دي ذاتك يدي ساسكو نولايين aad bay u cabsadeen biyo la'aan baa dhacday ilaa dadka ay ku sheekaysteen ceelka inuu ku jiro jinni shayaadiin ceelka inay degan tahayo jaraysa xariga wadaanta qof u dhawaadaa baa la waayey oo geesi ah inuu ceelka galo oo uu soo fiiriyo bal waxa ku dhex jira maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin ka mid ah nimankii magaalada deganaa wuxuu yidhi aniga ayaa waxaan gelayaa ceelka waxaan rabaa in la ii keeno rag xariga ii qabta markaan ceelka gudaha u galayo laakiin waxaa shardi ah in walaalkay uu ka mid noqdo ragga xariga ii qabanaya markaan ceelka gudihiisa galayo dadkii magaalada ayaa aad ula yaabay waxay yiraahdeen ragga xariga qabanaya waa rag aad u badan oo haddana rag xoog badan ah maxaa ka dambeeya shardiga walaalku wiilku ninku xiranayo oo uu leeyahay waa in ragga xariga qabanaya walaalkay uu ka mid yahay kadibna waa laga yeelay rag aad iyo aad u badan tiradoodu xoogna leh oo uu ku jiro walaalkii isagu la dhashay ayaa xarigii u qabtay markaas ayuu ninkii wuxuu u degay ceelka gudihiisa ceelkii markii uu guntiisa tegay ayuu wuxuu meesha ugu tegay daanyeerkaas ayuu ahaa markaa midka mar walba xariga soo jarayay oo wadaanta meesha ku reebayay ninkii cidna arrintii umuu sheegin daanyeerkii buu soo qabtay madaxuu soo saartay kadibna wuxuu ku yidhi raggii haddaba isoo dhifto xariga kor u qaada daanyeerkuna madaxu saarayn markay soo qaadeen oo soo dhoweeyeen ayaa waxay arkeen waxaan soo socda oo aan bini aadanka ahayn waxay arkeen jeegadii ama madaxii daanyeerka markaas ayay dhammaantood fakadeen oo carareen waxay u maleeyeen jinnigii iyo ibliiskii ceelka ku jiray inuuba xariga soo raacay way carareen ilaa hal qof ma ahani kaasoo ahaa walaalkiis xarigii ayuu ku dheganaaday xoogna u soo saaray ilaa uu walaalkiis badbaadiyey markaas ayay waxay dareemeen dadkii magaalada deganaa haddii ilaahay ka soko walaalkiis uusan meesha joogin oo xariga haynin ninkaasi ceelka inuu ku dhexdhici lahaa loogana tegi lahaa allah qur-aankiisa wuxuu ku yidhi jala jalaaluhu sanashuddu cadudaka biakhiik muuse isagoo la hadlaya calayhi salaam ayuu wuxuu yidhi cududkaaga waxaan ku adkaynaynaa waxaan kugu quweynaynaa waxaan kugu adkaynaynaa walaalkaa booska walaalka kula dhashay cid buuxin karta oo walaal kuu noqon karta oo jacaylka iyo xiriirka iyo badbaadinta aad ka heli kartid walaalkaa cid buuxin kartaay ma jirto waxaa la mida walaasha muxuu ahaa ilaalintaada iyo ka fakeritaankaaga iyo ka warhayntaadana booska walaashaa cid kale uu kuu geli kartaay ma jirto wa qaalat liukhtihi qussih nabi muuse calayhi salaam hooyadiis markay ku riday sanduuqiyo dhex dhigtay webiga walaashiis ayaa waxay ku tiri liukhti dabagal oo isha ku hay walaalka boosku qofka bini aadanka u jooga walaalkiis boos yar ma ahan ha dayicin walaalka ha goynin walaalka cidlana ha uga tegin walaalka maalin maalmaha ka mid ah ayuu meel adag kaaga soo bixi doonaa وجزاكم الله خيرا.